ومضيت وحدي في ظلام مجهم قمر هناك يطوف حول الأنجم حملت لي الأنسام في خلجاتها عقدين من زمن مضى بل أقدم يا حسن بيت ضم في أرجائه رهط بهم من كل طيب أنسم عشنا به زمن الجميل بفرحة على ذاك الزمان الأكرم عشنا وكنا صبية نلهو به. بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. إن شاء الله تعالى waxaan ka hadli doonaa saddex shay oo runtii mar walba nagu soo laabtay inaan ka hadalno dadkuna su'aalo ay naga weydiiyaan waa baabasiirta oo masiibyaanta iyo infectionka. waxaan ku hormaraynaa baabasiirta. calaamaadka baabasiirta lagu gartaa waxaa ka mid ah waxay qofka u geysato dib baan insha Allah tacaala ka sheegi doonaa, laakiin calaamaadka qofka ay hayso uu dareemayo waa margiyada iyo garbaha oo xanuun badan ka qabto, caajis badan oo uu dareemo, kulayl jirkaasiiba lugaha ama gacmaha uu ka sii daayo, caloosho istaagta oo saxaradii qashinka loogu talagalay inay baxdo oo aan bixin. marmar wuxuu sameeyaa cuncun ama fin axal ama dhiig baa bishii hal mar ka yimaada, way dhici kartaa inuu ka yimaado. lugahoo kale kabuubyay ku ridaa, caajis fara badan bay qofka gelisaa. raganimada waxaa laga yaabaa inay ta'hiir badan ku samayso oo awoodda qofka ay hoos u dhigto. waxaa laga yaabaa xitaa hadduu salaadaha aada u tukan jiray oo kale inuu caajisna ka dareemo, marka uu kacayana ay dhib ku noqoto kicitaanka iyo fadhiga uu fadhiisanayo. waxaan ka caban jiray madaxa iyo labada madaxa oo 24 hours ku go'an. iminka laakiin waan fiicanahay maasha Allah. dhakhtarkii markaan la xiriiray dawada uu siiyay waxaan siiyay dawadan baabasiirta. dawadii markaan cunay madaxii alxamdulillah waan ka ladnaaday, waan fiicanahay. waxaan ku xigsiin doonaa insha Allah tacaala masiibiyaan wax la yiraahdo oo shaydaan ah oo dumarkay aad ugu dhacda. calaamaadka marka lagu garto masiibiyaanta qofka jeex baa xanuuna, dibiruu yeeshaa, calooshiisa waxbaa ka dhaqaaqa oo ka nuuxsada, meelaha halkaas oo kale way yara xanuuntaa, ama midig ha noqoto ama bidix ha noqoto. caadadoo kale khalkhal bay ku ridaa, bal waxaa laga yaabaa inayba joojiso oo laga yaabo haweentii 4 bilood 5 bilood inayna caado wax caada ayna helin. Allahumma musta'aan. ilmaha way cuntaa oo meeshii la rabay cayayaan badan inay ku dhacaan marka ninka iyo haweentu issameeyayaan waxay isku daysaa in badan inay qabato oo ay cunto si ayna u gaarin koolihii loogu talagalay, una u gaarin inuu ilmihii ku sameysmo. waxa laga yaabaa haddii ay ku guuleysato ilmahaas inuu gudaha galo inay 3 bilood 4 bilood 5 bilood markay gaadho ay soo rido oo banaanka ay keento. dhabarku wuu xanuunaa, naxdin buu qofku yeeshaa, khalaq ama naxdin dhafoorada iyo madaxa, wadna garaac ama daal wuu yeeshaa. intaana waa masiibyaanta annagoo soo gaagaabinayna insha Allah tacaala. xanuunka yahay wuxuu ahaa wadaadku wuxuu yiri waa masiibiyaan dhinacu aad buu xanuunayay. computer kastaan isa saaran waxa la lahaa waxa laala wax ku haya ma leh, waxba ma qabtid. haddana markaa sheekh uu yimi aan waraystay wuxuu yiri xanuunkaagu saas ayuu badan yahay masiibiyaanka, marka daawada soo qaado. daawadii anoo qaadanaya ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala Ilaahay siiyay ilmo. intii kadib anoo dawadii ku guda jiro dawadii qaadanaya ayaa Allah subxaanahu wa ta'aala siiyay. ilaahayna waan ugu mahadinayaa iyo sheekhaba ma sha Allah. infectionka runaantii waa cudur qallayl iyo qoyaan buu leeyahay, laakiin insha Allah tacaala keen wuxuu banaanayaa qoyaan kale. qofka kaadidu way gubtaa, nin iyo naag ba haday tahay kaadidu way gubaysaa. bal waxaa laga yaabaa mar allaale markay kaadidu niyadda soo gashay misku soo dhawaado inuu ka yimaado.
waxaa kaloo lagu gartaa intaa wareega wuu xanuunaa, dhabarku wuu xanuunaa. hadday dumar tahay qoyaan badan bay yeelanaysaa. waxyaalo kale oo nooc kalaa sida wax cadow ka yimaadaa, marmar huruud oo kale ka yimaada. waxaa laga yaabaa dumar hadday tahay in xubinta taranka cuncun iyo wax ka galo. waxaa kaloo jira insha allahu tacaala infectionka maadaama aan ka hadlayno prostate infection wax la yihahdo ragga ku dhaco khaas u ah, oo kaadida way gubaysaa, way kala hadhaa oo googo bay leedahay. oo markuu is yihahdo dhaq oo kala waxa gadaal ka yimaadaan, biyo degdegna wuu dareemaa. haweentiisa markuu u tago xalaasha waxaa laga yaabaa in biyihii ay markiiba soo degdegaan. marmar xininyuhu ugu dheeraadaa, wuu naxuusaa oo eber buu noqdaa. xididadu way soo weynaadaan. marmar wax cad baa ka yimaada markuu kaajo oo kale, dhabarku wuu xanuunaa, xininyuhu way kala dheeraadaan. marmar qaar xoqitaan ku daraa jira oo markii infection ka bato xiniyo inay xoqaan isku daya. waxaasoo dhan waxaa lagu gartaa infectionka. awooddana wuu baabi'iyaa oo wuxuu isku dayaa xitaa qofka inuu dhalmo la-aan dhigo oo xantiisii iyo wixii loogu talagalay inuu baabi'iyo. la dhaho xagga taranka gabadhaan qabay 5 sano isqabnay 5 sano gabadhi markay urqaado waa soo dilmaa Sheekh Farxaan wuxuu yiri gabadhana dawaan siinaa adigana dawaan ku siinaa. gabadhii dawadii waa uu siiyey, dawa musubyaan gabadhii siiyey, anigana dawo siiyey 3 bilood awooday yiri. 3 bilood markaan qaatay bishii koowaad waxa igu dhashay wiil ma sha Allah barakallahu ilaa haddana waa okay. hadda sanad wiilkii weli ma uusan gaarin, hadda uu dhashay. marka waxaan u caafimaad Al-Huda Herbal ilaahay amrigiisa dheereeyo Sheekh Farxaan Cali Dhimbil. infectionka makaanka ku dhaco alxamdulilah hadda waan ka caafimaaday. taladii uu sheekh isiiyey iyo daawada uu siiyey, daawadaas oo la muddo 2 bilood aan isticmaalayay. shalay anigoo xanuunsan halka imid, maantana anigoo caafimaad qabaa imaaday alxamdulilah. ilaaha mahad iskale. wabillahi tawfiiq. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.